السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلامي دمانتينا meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada muuqaalka maanta. qisada maanta ama muuqaalka maanta waxaan ka hadli doonaa saxaabi nabiga aad u jeclaaday heer xataa wuxuu gaaray inuu nabiga ka agtagin. saxaabigan hooyadiis iyo aabihiis waalidkiis ayuu ka soo tagay si oo mar walba uu arko nabiga calayhi salaatu wassalaam, si oo nabiga u ag dhawaado. marka waa kuma saxaabigan, maxayna tahay qisadiisa? daawasho wacan. abka Mota waa application ku suurad gelinaya in aad ka dhex dalbatid gaari taxi ama mooto adigoo la heshiinaya dareewalka. kala soo deg Play Store-ka adigoo raacaya linkiga description-ka yaalo. saxaabigan waxaa lagu magacaabaa Rabiica ibnu Kacab al-Aslami. nabiga markaa la soo dirayna saxaabigan aad ayuu u yaraa, wuxuuna ku noolaa Makka, laakiin asagoo yar ayaa qalbigiisa iimaanka buuxiyey. markii ugu horeysay uu nabigu arkay ayuu jeclaaday, jecel ka dhigay inuu ka jeclaado wax walba, wax kasta. laakiin nasiib xumo nabiga wuxuu u haajiray Madiina. Makka ayuu ku noolaa, kadib wuxuu aaday Madiina. Rabiica wuxuu joogay Makka. marka nabiga markuu Madiina aaday, Rabiica wuxuu ku haray Makka maxaa yeelay ahalkiisa iyo waalidkiisa meesha ay degnaayeen. marka waxaa dhacday nabiga calayhi salaatu wassalaam markuu Madiina aaday, Rabiica ibnu Kacab aad ayuu u murugooday, sababtoo ah waxaa ka fogaaday qofkii adduunka ugu jeclaa oo ahaa nabiga calayhi salaatu wassalaam. marka wuxuu go'aansaday inuu aado. Rabiica ibnu Kacab wuxuu go'aansaday inuu haajiro asagana, inuu aado Madiina meesha uu joogo nabiga calayhi salaatu wassalaam. marka wuxuu sameeyey, waalidkiis ayuu u tagay, wuxuu dhahay waxaan aadi rabaa Madiina si aan rasuulka uga ag dhawaado. labadiisa waalid markay arkeen jaceelka uu u qabo nabiga calayhi salaatu wassalaam way fasaxeen. asagoo yar waxay u ogolaadeen inuu aado Madiina. marka Rabiica ibnu Kacab sidaas ayuu Makka kaga soo tagay. waalidkiis iyo ehelkiis iyo meesha uu ku noolaa gurigiisa meelahaasoo dhan ayuu ka soo tagay, jecel oo u qabo nabiga calayhi salaatu wassalaam dartiisa. markuu Madiina soo galayna wuxuu aaday masaajidka rasuulka si uu u arko nabiga calayhi salaatu wassalaam. marka Rabiica ibnu Kacab markuu masaajidka galay wuxuu arkay nabiga oo tujinayo saxaabada, waxayna ahayd salaatul casr. safkii ayuu dhinac ka galay, salaadii ayuu la galay. kadib waxaa dhacday salaada markaa la dhameeyey, Rabiica booskiis ayuu ka soo kacay, wuxuu u socday nabiga calayhi salaatu wassalaam. salaada markay dhamaatayba wuu soo kacay, wuxuu soo aaday nabiga calayhi salaatu wassalaam, meesha ayuu nabiga ku salaamay. maxaa ka wanaagsan kulankaas? qofkii uu jeclaa oo weliba ahelkiisa iyo gurigiisa ugu soo tagay dartiisa ayuu la kulmay. weliba qof caadi ah ma ahan, waa nabiga calayhi salaatu wassalaam. qofka marka uu la kulmo qof familkiisa ka mid ah ama qof saaxiibkiisa ah muddo ka maqnaa uu ku farxaa, laakiin ka waran nabiga calayhi salaatu wassalaam, macnaha kulankii uga farxadda badnaa. Rabiica ibnu Kacab taas ayuu dareemayay. marka wuxuu sameeyey, Madiina ayuu degay. nabiga calayhi salaatu wassalaam maadaama uu degan yahay Madiina, wuxuu dhahay asaga ayaan agdegaa, dariskiisa ayaan noqonaa. laakiin Rabiica ibnu Kacab wuxuu ka imaaday Makka, yacni ehelkiisa wuu ka soo tagay, mana ahayn qof oo maalqabeen ah, qof maal haysto. marka wuxuu degay masaajidka rasuulka. Rabiica ibnu Kacab iyo nabiga waxay noqdeen daris. saas ay tahay, Rabiica ibnu Kacab jaceelka uu u qabo nabiga wuxuu dareemay inuu ka gaabiyey xaqa nabiga. subxaan allah, dariskiisu ahaa nabiga, dariskiisa ayuu ahaa. saas ay tahay weli kuma qanacsaneen, wuxuu rabay intaas in ka badan. marka wuxuu go'aansaday inuu nabiga u taga. nabigu u tagay, wuxuu dhahay adeegahaada aan ku noqonaa, waan kuu shaqeynaa. af carabi ahaan khaadim aan kuu noqonaa. marka nabiga calayhi salaatu wassalaam wuu soo dhoweeyey, uma diidin, calashaan wuxuu ogaa inuu jecel yahay. Rabiica isagoo ka sheekeynayo wuxuu dhahay, maalintaas kadib markuu oo nabiga ii ogolaaday in aan u shaqeeyo ama in aan khaadimkiisa noqdo, maalintaas kadib waxaan noqday harkiisa oo kale. meesha uu aado ayaan u raaci jiray, wax walbana oo u baahdo nabiga calayhi salaatu wassalaam aniga ayaa u soo qaban jiray, xitaa asagoo dalban. Rabiica asagoo ka sheekeynaya wuxuu dhahay, uma baahneen inuu ii sheego waxaas ii soo qabo, uma baahneen, waan dareemay waxa uu rabo, horanka dareemi jiray. wax agtiisa yaalo nabiga calayhi salaatu wassalaam, isha hadduu ku fiiqo, Rabiica wuxuu dhahay waan ordi jiray, waan soo qaban jiray. macnaha nabiga intuusan hadlin, intuusan dhihin waxaas ii soo qabo, Rabiica wuu ordi jiray, wixii wuu soo qaban jiray. waxaasoo dhan jecel oo u qabay nabiga calayhi salaatu wassalaam. Rabiica ibnu Kacab jaceelka u qabo nabiga calayhi salaatu wassalaam waa jecel la soo koobi karin. wuxuu dhahay, maalintii dhan ayaan u shaqayn jiray, maalintii dhan waxa uu dalbado waan u keenaa, meeshii uu aado waan la socdaa. habeenkii markaa la gaaro, nabiga calayhi salaatu wassalaam gurigiisa ayuu aadaa. Rabiica wuxuu samayn jiray, albaabka nabiga, guriga albaabkiisa ayuu fadhiisan jiray. lacalla haddii nabiga uu wax u baahdo, diyaaran ahay, waan u adeegaa. laga yaabo nabiga habeenkii inuu soo tooso, wax u baahdo, anigana joogin waa dhibaato, marka waa inaa albaabka ag fadhiistaa.
wuxuu dhahay albaabkiis ayaan ag fadhiisan jiray wuxuu dhahay nabiga habeenkii oo dhan wuxuu ku dhamaysan jiray salaad badnaa inta aan maqlayna asagoo akhrinaya faatixada kadib hurda ila tagaysay Rabiica ibn Kacab wuxuu dhahay mar walba waxaan maqli jiray faatixada nabiga calayhi salaatu wasalaam asagoo akhrinaya faatixada kadib hurda ila tagaysay ama waan daalana meesha waan ka tagay masaajidka aan aaday waa iska seexanay macnaha albaabka kama dhaqaaqi jirin asagoo daalneen markuu daalo ayuu hurdadiisa aadi jiray marka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu jeclaa qofkii wanaajiyo qofkii wax wanaagsan u sameeyo inuu abaalgudo Rabiica ibn Kacab asagoo ka sheekeenayo wuxuu dhahay maalin ayaa nabiga ii imaaday nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa u yimid wuxuu ku dhahay wax dalbo ama i weydiiso wax aan ku siiyo Rabiica ibn Kacab cabaaro ayuu fikiray kadib wuxuu ku dhahay waqti isii waan ka soo fikiraa nabiga calayhi salaatu wasalaam Rabiica ayaa wuxuu ku dhahay wax i weydiiso aan ku siiyo Rabiica ibn Kacab wuxuu ugu jawaabay waqti isii waan soo fikiraa wixii aan ka dalban lahaa wixii aan ka codsan lahaa waan ka soo fikiraa Rabiica ibn Kacab asagoo ka sheekeenaya wuxuu dhahay maalintaas waxaan ahaa qof dhalinyaro ah faqiir ah ehelkiisana meesha joogin gurina haysanin waxaa guri ii ahaa ama waxaa hoy ii ahaa masaajidka rasuulka asaga iyo dadka oo faqiiriinta ah dadka waxay u yaqaaneen martida islaamka nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay hadiye loo keeno sadaqa waxay loo keeno ayaga ayuu sii jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam markaa loo keeno sadaqa markaa loo keeno wuxuu sii jiray masaakiinta oo masaajidka jooga masaakiinta oo masaajidka degan waxaana ka mid ahaa Rabiica ibn Kacab sidoo kale haddii loo keeno hadiye inta uu rabo ayuu ka qaadan jiray inta kalena wuxuu u qeybin jiray masaakiimadaas oo masaajidka joogeen marka Rabiica wuxuu dhahay maalintaas waxaan ku fikiray inaan weydiisto nabiga maal inaan weydiisto lacag si aan u noqdo dadka oo kale oo weliba aan guursado wax yar kadibna waxaan isku yiri hoy joog adduunkan waa wax laga tagaayo waxa adduunkan ku haysatid waa wax tagaayo beri mid kale rizqaadi ilaahay ayaa haayo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa kafaala qaaday marka wuxuu is dhahay rasuulka weydiiso khayrka aakhiro maalimo kadib nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa u yimid wuxuu ku dhahay haye maxaad leedahay oo micnaheedu tahay haye ma ka soo fikirtay waan ka soo fikiraya dhahday wixii aday iga codsan lahayd ma ka soo fikirtay Rabiica ibn Kacab wuxuu dhahay haa rasuulka ilaahay waan ka soo fikiray ee waxaad ilaahay ii weydiisaa inaan kugula rafiiqo jannada nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku dhahay yaa kugula dardaarmay sidaas Rabiica wuxuu dhahay wallahi cidna naftayda marka hore waxay rabtay inaan wax ka weydiisto wax dunida yaalo laakiin marka dambe waxaa naftayda lagu hanuuniyay inaan adduunyada ka doorbido aakhiro sidaas darteedna ayaan ku weydiistay inaan jannada kugula rafiiqo nabiga calayhi salaatu wasalaam cabaar ayuu aamusay kadib wuxuu ku dhahay wax kale Rabiico macnaha wax kale ay weydiiso laakiin Rabiica ibn Kacab wuxuu ku dhahay rasuulka ilaahayow waxa aan ku weydiistay wax kama bedeli maayo waxa aan ku weydiistay ma bedelayo waxba ka bedeli maayo waxa aan ku weydiistay marka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku dhahay igu caawi sujuudda badan Rabiica ibn Kacab wuxuu dhahay salaada iyo cibaadada aad ayaan ugu dadaali jiray si aan nasiib ugu yeesho la rafiiqitaanka nabiga aakhiro Rabiica ibn Kacab wuxuu dhahay maalimo kadib waxa ay imaaday nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuuna i weydiiyey ma guursanaysid miyaadan guursanayn Rabiico ma guursanaysid miyaade laakiin Rabiica ibn Kacab jawaabtiisa waxay ahayd marabi inaan ka mashquulo adeegitaankaaga mid kale ma haysti wax aan gabadha meher uga dhigo sidoo kale wax aan ku biilo ma haysti nabiga calayhi salaatu wasalaam wuu aamusay maalimo kadib ayaa haddana u soo laabtay isla su'aashii ayuu ku celiyey su'aashii ayuu weydiiyey ma guursanaysid miyaa Rabiico Rabiica ibn Kacabna isla jawaabtii ayuu bixiyey asagana marka xoogaa kadib Rabiica ibn Kacab wuu fikiray naftiisa ayuu ku fikiray Rabiica wuu fikiraya niyadiisa wuxuu dhahay nabiga ayaa og waxay ii fiican nabiga ayaa og waxay ii wanaagsan iyo waxay aan haysto marka wallahi hadduu mar kale ii weydiiyo su'aashaas waan waajibaya maalimo kadibna nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa u soo laabtay wuxuuna ku dhahay ma guursanaysid miyaa Rabiico Rabiica ibn Kacab wuxuu ku jawaabay haa rasuulka ilaahiyo waan guursanaa laakiin yaa ii guurinayo adigoo og xaalkayga yaa gabadhiisa igu darsanaa xaalkayga waad u jeedaa yaa gabadhiisa igu darsana anigoo faqiir ah jawaabtaas markuu bixiyay Rabiica ibn Kacab nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku dhahay baxreer hebel u tag waxaan ku dhahdaa rasuulka ayaa ii soo diray wuxuuna idinku amrayaa in gabadhiina hebelay igu dartiin in gabadhiina ii guurisaan Rabiica ibn Kacab reerkii markuu u tagay oo arinta u sheegay waxay ku dhaheen soo dhawaaw way soo dhaweeyeen waxay ku dhaheen soo dhawaaw rasuulka ilaahayo macnaha qofkii soo diray rasuulka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxayna u mahriyeen gabadhii Rabiica nabiga ayuu u laabtay wuxuuna ku dhahay waxaan ka imid gurigii uga khayrka badnaa waa ay ii rumaysteen wayna i soo dhaweeyeen gabadhoodna way ii mehriyeen hadda halkeen ka keena meherka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu u yeeray nin lagu magacaabo Burayda oo ka mid ahaa odayaasha reer bani Aslam wuxuu ku dhahay Rabiica waxaad u soo aruurisaa dahabkii ayaa loo soo aruuriyey Rabiica ayaa loo dhiibay wuxuu ku dhahay nabiga bax qoyskii ama reerkii u tag waxaana ku dhahdaa
وكان مهرك قبدينا ربيعة مركو ريركي وجي ذهبك وحيكون دهين وحبضا أو وناكسن ذهبك إنكستو أسكيرا ويأخبلين وحين كودهين ولبا وحبضا أو وناكسن ربيع النبي أي أولاب تمر لبات أسوق فرحسن وحوده ريركي ويأخبلين مهرك ولب وحيدهين وحبضا أو وناكسن مرك هاد حاجة لك كينا وليمذا معناها يعني عنتذا وحي لعون لها حاجة لك كينا نبي عليه الصلاة والسلام وحو يري مرلبات بريدة وحنا دهي ربيع بن كعب لعك وان لوغو قضى وسو أروري لعكتي لو أروريي وانكي أيا لسو قضي كدب النبي عليه الصلاة والسلام وحو كدهي عائشة أوتك وحاد كده هذا إسي هيدا أدهيسو عائشة رضي الله عنها وحي كده هذا وحان هايا تضو صعب يعني تضو مر ساس أمالينا وحكلا ما هايو ربيع بن كعب وانكي يتضوذي أو هيدا مياه موغي شعير أف صومالي أف عربي شعير الله مركا شعيرك iyo wax uu qaatay iyo wanki wuxuu la aaday reerkii gabadha waxay dhaheen shaciirka anaga sameynayno ee adiga iyo saaxiibadaadi yani asxaabtaadi waxaad soo karisiin ama waxaad soo samaysiin wanka rabiica wuxuu dhahay haye aniga ayaa wanka aniga iyo reer bani aslam ayaan soo qalayna anaga soo sameynayno reerkiina waxay sameeyeen shaciirka ama heedda miyaa ma ogi qoraal kale akhrinay heedda miyaa mise heedda karaale noqda haddaan wax khaldo arooskana sidaas ayuu ku dhacay waxaana la casuumay nabiga calayhi salaatu wassalaam guurkaasna run ahaantii waxaan dhahi karaa waa guurkii ugu weynaa maxaa yeelay nabiga ayaa maamulaya bilowga ilaa iyo dhammaadkiisa midda kale nabiga calayhi salaatu wassalaam intaas kaliya kuma ekaan laakiin rabiica bnu kacab wuxuu siiyey dhul oo ka agdhow guriga abubakar asidiiq radia allaahu canhum jamiican ilaahay karaale noqda rabiica bnu kacab muuqaalka intaas ayuu ahaa waxaan rajaynaa inaad ka heshay haddii aad ka heshay la wadaag asxaabtaadii ama u sheergaray marka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام